wafdigan iyo horkacaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa markii uu gaaray magaalada Afmadow waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay madaxda maamulka degmada Afmadow iyo qaybaha kala duwan ururada bulshada rayidka ee degmadaasi. Ujeedka safarka mas'uuliyiintani ayaa ahaa in shacabka degmada Afmadow loo sameeyo barnaamij wacyigelin oo ku aadan hanaanka maamul dadajinta isla markaana la fahansiiyo faa'iidooyinka nidaamka dhismaha dowladaha hoose uu u leeyahay bulshada degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Afmadow oo soo dhaweynta kadib hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan wafdiga ka socda wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland oo horkacayo agaasimaha aadan gaarane nasiib wanaag si nabad ay nagu soo gaareen anigoo ah gudoomiyaha degmada Afmadow si fiican baan u soo dhaweynay sidaa daraadeed waxay u socdeenna waxay ahayd shirarkii loogu talagalay maamul dadajinta waxaan jecel lahay hadduu ilaahay shirarkaas inay socdaan laba bari. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland mudane aadan faarax gaarane oo soo dhaweynta kadib warbaahinta Jubbaland la hadlay ayaa uga mahadceliyay maamulka degmada Afmadow soo dhaweyntii ay u sameeyeen isagoo dhanka kale faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarkooda. degmada Afmadow waxay ka mid tahay degmooyinka aan ugu talagalnay inaan ka hirgelino maamulka dowladaha hoose ruuxantii sanadkii 2018 laga hirgeliyay hadmay suurtoobin ka hor intaan dowladaha hoose la dhisin runtii waxaan ku talagalnay inaan dadka ka wacyigelino ama aan u furno tababaro khuseeya arrimaha maamul dadajinta. Saan ogsoonahay dowladnimadu waxay u baahan tahay barasho waxaan u baahanahay inaan magaranaysaa aan dadka reer Afmadow siiba dadka waxgaradka ah ee degmada khuseeya gudoomiyaha degmada uu yahay iyo magaranaysaa ururada bulshada inaan u qabano tababar ku saabsan maamul dadajinta waxyaalaha wax la yiraahdo decentralization oo ah hawlo ka horeeya dhisitaanka dowladaha hoose in la qabto ka hor. Afmadow kaliya ma ahan waxaan noo qorsheysan safarta dambe ee safartan xigta inaan Garbahari tagno aan Baardheer ku xijino dhammaan shanta degmo ee noo qorsheysan sanadkan inaan maamulka dowladaha hoose aan ka hirgelino. degmada Afmadow oo qiyaastii 120 kiiloomitir galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 120,000 waana magaalo bulshada ku dhaqan ay isku duuban yihiin kana mid ah magaalooyinka Jubbaland ugu nabdoon. Ismaaciil Cali Cabdi warbaahinta dowlad goboleedka Jubbaland Afmadow gobolka Jubbada Hoose.